dhaawaca afarta ruux ayaa yimid ka gadaal markii kooxo dhalinyaro ah oo ilaalo ka hayay goob ay ka socotay bandhigsaneed ay qabanaysay fanaanada Fartuun Axmed Sahal Fartuun Birima iyo culimo uu diin ka soo horjeeday qabashada barnaamijkaasi ay dhaxmartay israsaasayn kooban waxaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen culimo uu diinkii bandhigsaneedka ka soo horjeeday iyo dhalinyaro u daawasho tagtay heesihii la soo bandhigayay maxamed cumar cabdi oo kamid ahaa goobjoogayaashii xalay ka qayb galay showgii lagu qabtay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa VOA-da uga warramay wixii uu arkay iyo sida ay wax u dhaceen. xalay waxaa dhacay oo aan goobjoogo ahaa bandhigsaneedka shaqaaqa ka dhacday oo ku saabsanayd kala wadaada iyo shacabka taageeraha bandhigsaneedka iyo nimanka wadaadada ah oo shaqaaqa ay dhex martay kadibna xabadoon baa dhacay gelinkii horeeto gelinkii dambena inta uu socday oo barnaamijku isku daba dhacayna geligedadii xabado ayaa dhacay anigu indhahayga waxa aan saaray nin anigii dhaawaca gelinkii horeeto oo xabada farta la leeyahay waan arkay kadibna wax kaleeto aan arkay ma jirto shaqaaqadii dambe oo habeennimadii showga uu socdana ciidanka ammaanka ayaa loo wareegay xafladii meesha ay ka socotay showgu si fiican ayuu noo dhacay barnaamijkaas inkastoo shaqaaqadu ay koobneed haddana goobta lagu qabanayay barnaamijka heesaha ayaa waxaa tegay ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug waxaana ay ciidanka halkaa ka xirxireen ilaa 5 ruux saraakiisha ciidamada oo VOA ay la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in dadka la qabtay ay xirxiran yihiin isla markaana loo haysto shaqaaqadii sababtay dhaawaca ee xalay ka dhacday koonfurta magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA